in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinku imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey. waxaan sii xoojin doonnaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay. waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen oo xilqaanka ahayd volunteerka ahayd aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida maktabadda qaranka, tiyaatarka, madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. aad baan idinkaga mahad celinayaa. xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafuridda leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhabar adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay idinkoo si xilkaasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay kuwaas oo buddhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. waxaa kale oo mahad celin mudan xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyey sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qarannimada Soomaaliyeed, ilaalinta madax bannaanida Soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo geeska Afrika ah. run ahaantii 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. sidoo kale waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udubdhexaad u tahay jiritaanka qarannimadeenna iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka iyo kor joogtaynta laamaha kala duwan ee dowladda. sidaas darteed dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah
in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjaca iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ay ku leeyihiin dowladnimada dalka. waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna. baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli muddaxiloodkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. mudanayaal iyo marwooyin 28 Diseembar 2019 waxaad ansixiseen sharci dalka u jiheynaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. nasiib darro waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay-adaha dowladda. kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajooda 26 Sebteembar 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 Sebteembar 2020. sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaaggii aanu dalku la rabnay. mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 Sebteembar 2020. dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku astaysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaar ah, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 bay dhabaluu gaareen. hase yeeshee waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeeddooyin gaar ah iyo dana guracan. mudanayaal iyo marwooyin 12 Abriil 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran. magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. su-aashu waxay tahay yaa abaabulay dhallinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? ka dowlad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalna in la ilaaliyo xasiloonnida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga
lexjeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad walaala ah dad aan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasna weeye waxa la yiraahdaa metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadda noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeena iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u heelino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeena ah shisheeye uusan nooga faa'iideysan aanu dhexdeena ka xallisanno si dawladdeena curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay allah u naxariis intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allah ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horay u sheegay xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel la iska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo dawladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado broseska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas la isugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii
waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan dhallinyarada soomaaliyeed waa ubaxeenna weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiinna maalkiinna dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteenna wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha aad u mahadsan yahay madaxweynaha xoogaa wuuna sugayaa xafiisku sii tegaya markaa wuu soo noqonaa markaan kulanka dhammaysano gudoomiye mudday hawsha markaan dhammaysano
mudane guddoomiye maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha May 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisa 16aad waxaa goobjoog ah 140 xildhibaan waxaan ku furnaynaa aayadaha quraanka kariimka waxaana noo akhrinayo xildhibaan Sheekh Shaacir xeer hoosaadkaa sidaa qoraay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta ayuu taariikhdu tahay 1 bisha shanaad 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisii 16aad kooramka annaga waa 140 xildhibaan ajandaha kulanka waa codaynta ogolaanshaha hirgelinta sharciga number 30 ajandaha aanu codayno waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waxaad dhegaysateen khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo nuxurkeeda ahaa in dib loogu noqdo heshiiska doorashada 17 Seteembar si loo soo afjaro kala aragti duwanaanta xubnaha golaha wadatashiga qaranka isla markaasna loo dedejiyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaasi oo kale waxaad akhrisateen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku codsanayo in loo ogolaado in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17 Seteembar xildhibaanada sharafta leh arrintan hortaalla ma aha mid dad gaara muxaafid iyo muxaarad si gaara u khusaysa waa arrin saameynaysa amniga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan nolosha shacabka Soomaaliyeed golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka wuxuu mathalaa shacabka Soomaaliyeed wuxuuna u adeegaa dantooda wuxuuna ku shaqeeyaa danta dalka iyo dadka iyo diinta sida ay ku jirto mar walba heshiiska 17 Seteembar idinkaa hore u ansixiyey oo hadda looma baahna inaan ka doodno ilaan heshiis aan wax ka bedelayno wax ku darayno maaha xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha wuxuu codsaday in lagu noqdo 17 Seteembar
maadaama sharciga 17 September waxba aan laga bedelayn aan waxna lagu kordhinayn jidka kaliya noo baahan inaanu codayno waayo marka waxaan codsanaynaa xogeeyaha inuu diyaar garoobo waa codaynaynaa waa codaynaynaa haa iyo maya u coday because heshiis wax ka bedeli maysa fariiso xildhibaan ya feeri horta aan isdhegaysanno heshiiska 17 September baarlamaanka wuxuu ansixiyey 26 September waa sidaasi fariista xildhibaanada sharafta leh fariiso xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed ee 17 September doorashada baarlamaanka inta ogol u codaynaysa gacanta taagto على صوت ريو هلا دجيو انت ديدن عن تاج مجرى يا كامسي على سوق بيو codaynta markaan sheegno waxaa soo noqon doona madaxweynaha si uu ugu mahad celiyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo codaynta aan isdhegaysanno xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 September in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha xildhibaan diiday ma laha waxaa ogol u codeeyey 140 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 September sidaas u ansax ku yahay waxaan sugaynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanada ugu mahad celiyaan
mudane madaxweyne sida adiga aad codsatay khudbadaadii iyo warqadaadii aad guddoonka baarlamaanka u soo gudbisay baarlamaanka wuxuu u codayay in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September waxaan ku siinaynaa kelmaddaadii ku aadanayd ansixintaas 17 September soo dhowo mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم قدومي ومحسنتين ومحسنتهاي هذه حلبانا شرفت له waxaan ku faraxsanahay aan ka mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasulsheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 September iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajeynaya inay hawshaas u guda gasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka annaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxno xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa arrin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaanba labadii kalfadhi oo ugu dambeeyey way isku furmeen oo baarlamaanka fasaxa ma gelin haddana lama geli doono waxaan rabnaa laakiin duruufaha jira awgeed kalfadhiga ma xirmi doono maadaama aan ku jirno aakhir shahr ramadaan aan ku jirno ciidina ay soo dhowdahay waxaan qorsheynay xildhibaanada bil fasaxa inay qaataan oo berit ka bilaabanayso lana soo ciido bil kadib la isku soo noqdo kulanka annaga maanta halkaasuu noogu xiran yahay assalaamu calaykum.